عالم كودا ومال عانو عدل نسي عيدا 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 ما انت عيد وناكسن عيدا عيد وناكسن عيد سعيد طيب الله أوقاتكم بكل خير كل عام وأنتم بخير دمان والدينتا عرورتا يا أصحابتا كلا دوان أي كحران بيج كانوا شاكيا عرورتا يجودهان ومدى مسلمينتا وحان لنا عيد وناكسن وحان الله كبرينا إنو نغوض أقبله أعماشي وناكسنيد ee ramadaanka lagu soo gutay عزيو شرفيو فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة عزيو شرفيو فرحتك عيدا عملك صوبا مسجدك عامرة عملك صوبا مسجدك عامرة barnaamijkan aan ugu magac darnay u sheekeeya caruurta waa barnaamij aan ugu talagalnay inay waalidiinta Soomaaliyeed ka helaan maado diyaarsan oo ay uga faa'iideysan karaan barbaarinta caruurtooda sheekooyinka aan ilaa hadda ku soo bandhignay barnaamijkan waxay gaarayaan 15 sheeko oo isugu jira sheekooyin aan ka soo dhaxulanay Quraanka Kariimka kuwa ku jira sunnada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa aan ka soo dhaxdooranay taariikhda Islaamka iyo sheekooyin guud waliba sheekooyinka وينو سocon doonaan hadii Ilaahay idmo si aad fikrad fiican uga qaadataan sheekooyinka barnaamijkan waxaan idin soo bandhigaynaa muuqaalo aan ka soo dhaxdooranay qaar kamida sheekooyinkii hore u baxay ee barnaamijka u sheekeeya caruurta la socosho wanaagsan inta markii uu sheegay nabiga kaleey salaatu salaam waxa la tagay ninkii yahuudiga gurigiisii waa la fatashay waxa laga soo helay diraaci markii inta warkay nabiga kaleey salaatu salaam in diraaci guriga yahuudiga laga helay ninkaana wax hadda cadeena oo inuu asaga xaday ninka inuu weeriqa aan la haynin nabigu wuxuu ku qancay nimankan warkoodii sidii ay ka codsadeen ayuu sameeyay dadka hortooda ayuu ka hadlay oo yiri inuu weeriq diraac ma xadin khaladna kuma lahan ayuu dadka hortooda ka yiri wuxuuna canaantay qataada oo ku yiri reer muslimiinta kamid oo wanaag lagu yaqaan ayaad ku eedeynaysaa toognimo adigoon hubsanin cadeyn aadan u haynin waxa qaaruun u nasiixay dadkii wanaagsanaa oo kamid ah qoomkiisa waxay ku yiraahdeen qaaruun waa kibrin oo aan noqonin qof Ilaahay nicmadiisa ku kibra Ilaahay ma jecelo qolada nicmadiisa ku kibirta waxay ku yiraahdeen waxaan Ilaahay ku siiyay oo nicmaha adduun iyo maal ah u adeegso inaad Ilaahay ugu dhawaato oo taacada Ilaahay ku bixi oo isku day inaad ugu shaqaysato aakhiro iyo janno isku day kadibna Ilaahay ayuu bariyay wuxuu yiri Ilaahay waxaad ogtahay inaan hebel lacag 1000 diinaar aan ka deynsaday wuxuuna yiri la imaaw qofku kafaalad qaada waxaan ku yiri Ilaahay ku filan inuu kafaalad qaado adiga ayuu raali kugu noqday wuxuu kaloona i weydiiyay inaan la imaado marqaati waxaana ku yiri Ilaahay ku filan marqaati adiga ayuu raali kugu noqday Ilaahay anigana waan dadaalay inaan doon helo si aan ninkii ugu tago lacagtiisa ugu geeyo waana awoodi waayay Ilaahay oo lacagtan adiga ayaan kugu amaanaystay ayuu yiri markii Abu Bakar arkay inay soo socotay sida ay u xanaaqsan tahay wuxuu nabiga kaleey salaam ku yiri amaad xooga ka leexataa oo meel laaba ka gashaa yeysan ku dhibaataynin nabiga kaleey salaam wuxuu ku yiri ima arki doonto oo Ilaahay ayaa ka qarin doono in ay aniga aragto markii ay u timid ay ku tiri Abu Bakar oo saaxiibka waxaan maqlay in uu tiriye gabay oo aniga ugu caynayo hadii aan maanta arki lahaa dhagaxan ayaan afka uga dhufan lahaa iyagu way arkeen dadkii xumaa in daayiro laga dhigay laakiin ma ay kala garanayaan kii qaraabada la ahaa iyo kii kale laakiin waxa dhici jirtay in kii kuwii la halay kamid ah inuu soo aado qoladii qaraabadiisa ahayd oo wanaagsanaa inuu yimaado oo dharkiisa carafsado oo markaas ku ooyo
markaa waxaa agtiisa fadhiyey wasiirkiisa oo ku yidhi qadar allaahu wamaa shaaa facal lacalahu khayr, ilaahay ayaa saan qadaray waxaana dhici karta inay khayr tahay. boqorkii ayaa aada u xanaaqay, wuxuu yidhi sidee u dhihi kartaa in farteeda ay go-do ayaa dhici karta inay khayr tahay? adigu nin xun baa tahay oo dhibkeyga ayaadba jeceshahay. wuxuu amar ku bixiyey in wasiirkii la xiro. wasiirkii oo xabsiga loo sii wada ayaa yidhi lacalahu khayr, waxaa dhici karta in aniga in lay xiro ayba khayr tahay. waxaa u jawaabay ninkii muuminka ahaa, wuxuuna ku yidhi allihii ku abuuray adigoon waxba ahayn, kaana dhigay qof dhammaystiran, kadibna kuu nicmeeyey oo beertaan iyo barwaaqadan ku siiyey, miyaad ku gaaloobaysaa? laakiin aniga ilaahay kuma gaaloobayo, cid kalena lama caabudayo oo keligiis ayaan caabudayaa. adiga haddii ilaahay kuu nicmeeyey oo uu beertaan ku siiyey, markii aad beertaada soo gashid maad dhahdid maasha allah oo aad ilaahay u mahad celisid oo aad qirtid in ilaahay awooddiisa uu kuugu siiyey beertaan oo ayan awooddaada iyo xooggaaga ku imaanin. habiil wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka muttaqiinta ah. haddii aad rabtid wax lagaa aqbalo, ilaahay ka cabso oo noqo qof ilaahay u hoggaansan si ilaahay wax kaaga aqbalo, ayuu ku yidhi. wuxuu kaloo ku yidhi haddii aad ii gacan qaaddo oo aad damacda inaad i disho, aniga kuu gacan qaadi maayo oo kuma dilayo, aniga ilaahay ayaan ka baqayaa. waxaa la sheegaa inuu haabiil awood u lahaa inuu walaalkii iska celiyo, laakiin waxaa la fool xumaatay, uunan jeclaysanin inuu walaalkii gacan u qaado. wuxuuna walaalkii uga digay xumaanta ay leedahay inuu qof walaalkiis dilo.